بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوك باللابنية آيات السقاشا هي أفراد وصورة النساء كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغفة ورمي قفك وقف مؤمن الدلاء أسقو عمد الدلاء يوء كسايا جزيه سينو جهنميهي وجهنم أكوارايو الله أعرودي الله أولعنضي إلهي عذاب عظيم ودياري أيا إلهي نوغفة ورمي وعيد عرد أيا إلهي نوغفة ورمي وقفك مؤمن كقفك عمد الدلاء المركز وحوي جزيه جهنم وياي آيات هي مركز تأويلات كيدي وين صومرني لاشا وحي نكجلينا أهل بعضي أيضنا وقت الصحابة أيا إلهي سبحانه وتعالى نوغو رميا يا أيها الذين دلك آمنوهم أيان وعيود إلهي إذا وقت ضربتم على السفريسين في سبيل الله إلهي جدكي سألك سفريسان فتبينوا عبايس أمور صوت إلهي ولا تقولوها أبو قولنا لمن دول ألغاه ذي إليكم حجينا السلام سلام إذين ذي لست مسيد مؤمنا مؤمن مسيد أبو قولنا تبتغون حال أضل بيسان على الله الحياة نوش بربر كيدا الدنيا أودو نهاية فعند الله إليه أسيس مغانم وغنيمة ياها كثيرة وفر بضا كذلك سيدا صوخلة آيات كنتم هذا إذن كوا مؤمنين ومن قبل هرس فمن الله دلنا إلهي وفق الله ليس عليكم كركينا فتبينوا عبيس إلهي سبحانه وتعالى أمورت عبيس أيود إلهي إن الله كان وحوى هذه بما تعملون وحد عمل فليسان خبيرا عليه بعدك ورقباء أيوه هذه آيات دين النشان كالقلين إلهي سبحانه وتعالى وحو إنا دينا يا مؤمنين أسوأ أقول نادينا هي صفة الإيمان أقول نادينا هي آيات المركة إذا أنت عن المعنى أقولين وهي سورة كتابها لي جمع أصحاب رسول الله كمدة أيها وحي صومرين بالي من ليلة بنو سليم كمدة أي صومرين لي ميل باديهين هذه إن كاسوا أسوأ أريك حيثنا كل كاسوا صحابي السلامي بالي من مسلم عيونا هاي kolkaasay waxay yidhaahdeen ninkan wuxuu noo salaamay waxa uu doonayaa inuu naftiisa iyo maalkiisa ou ilaashado ayuu rabaa markaasay dileen baa layidhi ari oo watana way ka kaxaysteen marka haddii waxa weeye aynu wax yar sii bayaanino waxa weeye waxaa laga wariyey ibnu cabbaas inuu saas ku warramay sabab nusuulka aayaddan inuu sidaas yahay oo ninkaas waxa weeye waxaa kaloo maaragtay uu yidhi waxuu ka mid ahay bani murrata ibnu cawf riwaayad kaloo siitaana saasay jirtaa marna wuxuu yidhi waxuu ahay ninkaas bani saliim uu ka mid ahay waxaa la dhihi jiray ayuu dhahay ibnu cabbaas ninkaas wirdaas ibnu nahiig ayaa la dhihi jiray waxa uu ka mid ahay ahlu fadki ayuu ka mid ahay qoonkiisana nimaan isaga ahaynin kama islaamin baa layidhi markii ay maqleen baa layidhi qoonkaas oo isagu uu ka dhashay saraayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo diray ciidan oo ilaalaha colgaadma oo nabigu uu soo diray markii ay maqleen baa layidhi kulligood waxaa weeye way carareen baa layidhi isaga keligiis ayaana ka soo haray baa layidhi markii waxaa weeye fardaha uu arkay baa layidhi ayuu wuxuu ka baqay baa layidhi inaysan dadkaanu muslimiin ahaynin oy gaala yihiin markaasaa waxaa weeye buur ayuu maaragtay aygiisiyo hoosta ka geliyey isaguna buurta ayuu kor u fuulay baa layidhi fardihii markay soo gaareen ayuu wuxuu maqlay baa layidhi ayagoo raggii fardaha wata ay takbiirsanayaan kolkaasuu wuxuu ogaadaa layidhi inay yihiin asxaabu rasuulillaahi isaguna waa takbiirsaday baa layidhi buurta ayuu ka soo degay baa layidhi isagoo dhahaya laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isagoo dhahaya saxaabiga la yidhaha usaamata ibnu zayd ayaa seeftiisa ku dhuftaa layidhi markaasuu halkaas ku dilay arigiisana waa kaxaysaa layidhi markaasay rasuulka u noqdeen asxaabtu markii arrintaas ay dhacday khabarkii ayaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulku arrintaas aad iyo aad ayuu uga xumaaday
waxaana weeye khabarku intaysan u tegin ayagu ayuu nabiga hore ugu hormaraa layidhi khabarku. rasuulka calayhi salaatusalaam markaas wuxuu ku dhahay ba markay u tageen aqataltumuuhu iraadata maa macahu, miyaad disheen uu dhahay rasuulka calayhi salaatusalaam idinkoo doonaysiin waxa markaasi uu haysto inaad ka qaadatiin, waxa uu haysto inaad ka qaadatiin adinkoo raba masaas ayaad u disheen uu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo wax kale maaragtay ma doonayna miya. markaasuu rasuulku wuxuu ku akriyaa layidhi usaamo ayuu aayaddan ku akriyey. usaama markaas wuxuu dhahay baa layidhi dhaafid ii weydii ilaahay rasuulkiisiiyow. markaasuu nabigu waxau dhahay kayfa anta bilaa ilaaha illa allah, laa ilaaha illa allahu maxaad ku samaynaysaa markay maalinta qiyaama ay timaadna riwaayadkaa eeda ilaa ja'ad yowma alqiyaamati 3 jeeruu nabigu calayhi salaatusalaam ku celiyey. markaasuu usaama waxau dhahay nabigu ka mas-uuli inuu ku celcelinaayo ilaa aan ka jeclaadow dhahay maalintaas ka horba inaanan islaam ahayn. nabigu calayhi salaatusalaam dembidhaafuu ilaahay u weydiiyey, waxauna dhahay baa layidhi xaqaba xuray ayuu dhahay, oo kafaaro ayaa markaasi ayaa laga doonayay. maxaa yeele diyo lama bixinayno shalay casharkeenaanu kusoo marnay oo ninkaas mu'minkaa qownkiisu kufaar xarbiyiin ay ahaayeen. waxaa kaloo usaame laga wariyey inuu dhahay waxaan idhi ilaahi rasuulkiisiiow inamaa qaalahaa khawfan min asilaaxi, ninkaanu tawxiidka wuxuu ugu dhawaaqay asagoo hubka ka baqaaya. markaasuu nabigu waxau dhahay yuu yidhi afalaa shaqaqta can qalbihi xataa taclama aqaalahaa khawfan am laa, qalbigiisa maxaad u dhambeli weysay ilaa aad ka ogaatid inuu khawf u dhahay min asilaax iyo inuusan u dhihin. adiga miyaa qalbigiisa shuqul ku leh? marka qof ahlu tawxiidahoo la dilaahu waxa weeye waa khatar ayadoo islaamnimadiisa la og yahay. marka hadda meeshaan waxaa la yidhi oy culummadu yidhaahdaan axaadiista waaweyna ku soo aroortay ninka la yidhahdo usaama lama qisaasinaa layidhi, oo qisaas ma uusan mutaysanaa layidhi. maxaa dhacay baa layidhi marka ilaa nin muslim how dilay kafaaro keliya bixiyaa nabigu yidhi calayhi salaatusalaam. waxaa la yidhi waxauna maaragtay aan loogu qisaasinaa layidhi usaama ninkan wuxuu ku dilay baa layidhi ijtihaaduu ku dilaa layidhi. ninka mujtahidkaane hadduu gefo waa loo dhaafaa. marka waxau ahay mujtahid u ahay oo ijtihaadkiisa ku gefay ayuu noqday, ee qof markaas uu og yahay inay muslim tahay hadduu dili lahay waa loo qisaasi lahay. saasaa marka meesha ku jirta. marka arrimahaas inaan lagu kadsoomin oo dadka mu'miniintaahu wax walba ay iska hubsadaan ayaa la doonayaa oo aan la degdegin. marka ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow idaa waktigii darabtum aad safraysaanow dha ilaahay fii sabiilillaahi fasaafartum liljihaadi weye, jihaad aad u safraysaan iyo qayrkiisba xataa ee aayadda sow nusuulkeedu wuxuu ahay jihaad. fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa aad ku safraysaan fatabayanuu caddaystow dhah ilaahay arrinta caddaysta. walaa taquuluuha ugu qawlina liman duul alqaa riday ilaykum xaggiina assalaama salaam idinsoo riday oo idin salaamay. salaamtu waa taxiyadaa layidhi amba waa inqiyaad weeye. masalanba inqiyaadku waxa u noqonayaa kelimatu shahaada weeye, qofki inuu tawxiidsado weeye. maxaa yeele tawxiidku amaana cala alislaam weeye, islaamnimada ayuu calaamo u yahay weeye. lasta masiid haw dhihinow dha ilaahi subxaana wa tacaala mu'minan mu'min masiid haw dhihina, mu'min masiid haw dhihinow dha ilaahi subxaana wa tacaala. oo haw dhihina warkan waxaadu leedahay tuqyatan linafsika wa maalika, maalkaaga iyo naftaada ayaad ku ilaashanaysaa. tabtaquuna xaal ad dalbaysaanow dha ilaahay caradal xayaati nolosha birbirkeedow dha ilaahay addunyaa oo dhow, adinkoo waxa weeye ulajeedadiinu ay tahay adduunya maaragtay birbirkeeda inaad qaadataan. maxaa yeele hadda waxaa dhacaysa dad ayagoo qofkaanu muslim inuu yahay og waxa weeye dilaaya oo xoolihiisa ka qaadanaya ayagoo markaas oo qofkaanu inuu maaragtay qof muslima uu yahay. waxa qofkaas naftiisa ay u dhaafinayaanne waxay raadinayaan caradal xayaati dunya, adduunyo birbirkeeda mataac oo taafiha oo liidata ayay qof muslima oo mu'mina oo xurmo leh ayay u dilayaan. mu'minkuna wuxuu ka xurmo badan yahay wax kasta ayuu ka xurmo badan yahay. kacbadaas ilaahay oo maaragtay musharafada ah mu'minka ayaa ka xurmo weyn. maxaa yeele rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam maalin ayuu kacbada fiiriyey, markaasuu wuxuu dhahay maa acdama xurmataka u dhahay, maxaa xurmadaada weynin badiyey, waalmu'minu acdamu minka xurmatan u dhahay, hase yeeshee mu'minkaa kaa xurmo weyn. marka hadda qof mu'min ah oo la og yahay inuu maaragtay muslim uu yahay oo ahlu tawxiid uu yahay, haddii loo jiro idoo la og yahay in markaasi wax yarow adduunyahusita laga qaato
وحوي تاسوا خطر وين بيلاده آيات شلع إن سومريني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه صحابي ابن عباس إلى واسن صومرا شلي إنه كتجي آيات قفك مؤمن كالدلال مسلم بقى مسلم ما بها كل انتهى إنه مخلد في نار ويه مركز خطر أيال وجل يا سال وهذا أركي سارد بدن أو مركز سوى حوية اليراء إنه أرماس وكع عيانه ضد بدن أي سياس الدلال يا وحوضا هو قاضنا يا لكن وحال وبها هي ما انت هدي الدلال وحوية أيوغنا واي سد وتيا أيوغنا واي دمانا يان هو أجهيدا من خوارا يمجره وحوية مركز علاش وين أي مركز سوى قوارك سارنا يا وحيابها الدنيا له عن قيمة لهين إنه مركز سكو آخر بيران وادبات آدي هذا فربضا مركز أرماس إلا قد يفتون هذا إيا لابد هوي إلهي يدور سبحانه وتعالى فعند الله إلهي أكتيس وحاء هذه مغانم غنيمة يالا كثيرة وفربضا إلهي أكتيس مغانم فربضا وقفكا صوكا وقفكا الدليسين وحا تقادنيسين وحكبضا أيا إلهي أكتيس يا بلك إلهي أكتيس وحيالا كبضا قفكا إنا للدين أو وحيس لغا قادم أيا مركز لابد هوي معايا لو إلهي كذلك صدا صوكا أيات كنتم أهاتين أيود إلهي من قبل هرس وحوي رجع أصحابتها يلا لسيخ دابعي في جينا يمال جينا وحا لغو دورة وحيهاين بمجرد قولكم قول كينا مجرد كيسو وشهادة كنا واخدين وأنكم ومر فهروا أنكم إسلام وحبك أقونين أيات مركة توحيستين أيات وحال لغو دوري مال كينا يدي جينا لغو دوري مركة قصة دوله لتوحيدها مال كيس يدي جيسة ومحصوم فمن الله إلهي واقع ليس عليكم برشينه ينفق ليس وبالاجتهاد بالإيمان والاستقامة إلهي وحاول ينفق ليس إن الإيمان كسو رولين هي استقامة مركة قفك شراسة وحبا سلا هدينا سلاس آيات إلهي إذنكوا أيضنا وحوية إنه سلاس نغطية لهدينا فتبينوا عضيته لإلهي أنت تأكيد واي إن القف مؤمن أدشان مركة وحوية إيمان كمركاتي أو داخل كفجراني تاسو حوية إلهي سبحانه وتعالى أياك ورقب وهي قفكانه أدوبا ظاهر كيف أو مسلم وياي وحوية قلب جيس إلهي ورقبه معناه وحوية وافعلوا بالداخل في الإسلام وحوية مثل فعلكم بكم وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم إسلام كأو داخل كقفكاس وغجراني وحوي فراها كقادوي كذا أدنكم مركو راضي هاجسين أيا يسوونه وياي تاسمرك إلهي با شغل كله قفكا دو مسلم وياي وظاهر كيس إسلام ماذا لقى هلو وحكى الله راعي مجر إن الله إلهي سبحانه وتعالى كان وحوى هذا بما تعملون وحد عمل فليسان خبيرا اللي هو بعدين كورقباه إن الله كان وحوى هذا إلهي بما تعملون وحد عمل فليسين خبيرا اللي هو بعدين كورقباه إلهي نوائد كجازين إياه عدوى إلهي عالم أيوكيه وحي سمينيش لا يستوي ماء قول إلهي القاعدون قوة فردية ومن المؤمنين مؤمنين تكملوا الجهات كفردية مؤمنين تاسو غير أولي الضرر لباتك وأصاحب غير كودا يو المجاهدون كوى جهادايا في سبيل الله إلهي جسكي سكو جهادايا بأموالهم مال يالكودا كل جهادايا يو أنفسهم نفطوا كل جهادايا لولا سمع قول إلهي سبحانه وتعالى آيادا هذا وحاسة في اليلا وقدقها هاليري رجي هذا اللي قصه وهمايي ووحا ويا أيقو الجهاد كجرة لنكاس مؤمن كهدي لي آيادا مركي سودك في عنام أيها قطع عضي مركي إنا يسان عرنتها سحوغا يسان سيني يجبين أيها الجهاد كذبك الجهاد آية ووحا ويا جهاد في سبيل الله أرض أمرأي هي قوة وحا ويا اسكفر لي إن فرق أرد حاجه وإن من كانوا إن كسو عرنتها سؤال كدع عضي هذا مقام كود ويهي أيها إلهي سبحانه وتعالى موضوع هميا ألا وذو لله يستوي ماء قول إلهي القاعدون قوة ففرديو إلهي ومن المؤمنين مؤمنين تكملة جاتك أي تفرديان قوة سوء غير أولي الضرر لبا تقوى أصاحب غير كذا ومؤمنين جاتك تفرديان لبا سنمقبان وي هي والمجاهدون قوة جهاد يو إلهي في سبيل الله إلهي جيكي تكون جهاد بأمار المال يالكود كل جهاد يو أنفسهم نفطوضة لبدا سمع قول إلهي هو مؤمنين تهو جهاد كفر ليون لبا صدق بنا
iyo kuwa jihaadaaya fii sabiilillaahi biamwaalihim anfusihim ku jihaadaaya ma sinnow dhah ilaahi subxaana watacaala fadlalallaahu alla waa fadilow dhahay alle almujaahidiina kuwa jihaadaaya biamwaalihim maalyaalkooda ku jihaadaaya iyo wa anfusihim naftooda cala alqaacidiina kuwa fafadhiya ayaa ilaahay ka fadilay alla wuxuu yidhi fadlalallaahu alla waa fadilay oo ilaahay subxaanahu watacaala wax dheeraad ayuu siiyey almujaahidiina kuwa jihaadaaya biamwaalihim maalyaalkooda ku jihaadaaya iyo wa anfusihim naftooda cala alqaacidiina kuwa fafadhiya qaacidiinta meeshan waxa weeye kuwa qaacidiinta hoo dhibaatadu ay haysato dhibaatada u fadhiya weeye darajatan darajo ayaa ilaahay ka fadilay fadiilo weeye hadda marka ugu horaysa niyada way ku siman yihiin laakiin qoladan jihaadaaya waxay ziyaada la yihiin mubaasharatulcaduw weeye cadowga ayay la baashirayaan marka sidaas ayay ku kala fadilan yihiin ayaga laftirkoodu hase yeeshee ilaahay wuxuu ihi wa kullan kulla arkowdha ilaahay oo labada fariiq ah kuwa waxa weeye dhibaatadu ay haysato laakiin niyadoodu wanaagsantahoo jihaadka saas uga joogay iyo kuwa maaragtay naftooda iyo maalkooda ku jihaadaya cadowga la baashiraya labadaas firqowdha ilaahay wacadallaahu alla wuxuu u yaboohay alxusnaa tii wanaagga badneed ayaa ilaahay u yaboohay alxusnaa tiiga wanaagga badneed ayaa ilaahay u yaboohay oo jannadii loola jeedo wa fadlalallaahu alla waa fadilowdha ilaahay almujaahidiina kuwa jihaadaaya cala alqaacidiina kuwa fafadhiya ayuu ka fadilay bikayri dararin weeye darar la'aantiis kuwa u fafadhiya wa fadlalallaahu alla waa fadilay almujaahidiina kuwa jihaadaaya cala alqaacidiina kuwa fafadhiya ayuu ka fadilay alleh ajran ajir ayuu ka fadilay ajirkaasoo cadiiman oo weyn ka bedel markaas darajaatin darajaad ayaa ilaahay ka fadilay oo minhu min allahi ilay xaggiisa ka ahaatay darajaad waxaa weeye manaasil bacduhaa fawqa bacdin weeye waxa weeye derajooyin oo kala sarreeya oo karaamo ah ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka fadilay marka alla wuxuu dhahay darajaatin derajooyin waa darajaatuljanna weeye oo minhu min allahi ilay xaggiisa ka ahaatay iyo wa makfiratan dhaafid iyo waraxmatan naxariis iyo wa makfiratan owdha ilaahay makfiro ayaa ilaahay ka fadilay iyo waraxmatan naxariis owdha ilaahay wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday gafuuran allihii dhaafo ilaahay subxaanahu watacaala dadka ahlu daacadiisa oo owliyadiisa waa u dhaafayaa raxiiman alli u naxariisto ayuu ahaaday ilaahay subxaana watacaala wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday gafuuran allihii dhaafa liowliyaa'ihi raxiiman allihii u naxariisto ayuu ahaaday biahli daacatihi dadka ahlu daacadiisa ina aladiina kuwa tawafa ay oobsanayso hum ayaga almalaa'ikatu malaa'igta ay oobsanayso dhaalimii anfusihim naftooda xaal ay dulmiyeen qaaluu malaa'igtu waxay u dhaheen ayagoo tawbiikinaya fiiman shaygeebaad kuntum aad ahaateen fiima shaygeebaad kuntum aad ahaateen qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay kuwii la oobsanaayey ayagoo cudur daaranaya kunnaa waxaanu ahaynay mustadcafiina kuwa la laciibsado dad caajisiin ka ah can iqaamati diin ayaan ahayn fil arli arrada lagu laciibsado qaaluu malaa'igtii waxay u dhaheen owdha ilaahay alam takun sow ma ahaanin ardullaahi ilaahay arladiisu waasicatan tu waasica oo fatuhaajiruu aad ku haajirtaan fiiha arlada ilaahay fa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay ma'waahum hoyadkoodu jahannamu jahannamo weeye wasaa'ad wayna xumaatay jahannamo masiiran xagga marjac ayay xumaatay aayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa loogaga warramayaa dagaalkii beder markii uu dhacay waxaa la yidhi dad waxaa jiray oo maka joogi jiray oo islaamay oo muslimiin ahay markay maka ku islaameen ma aysan haajirin baa layidhi waxaan hadda ka hor soo marnay qofku waxa weeye markuu maka ku islaamo markuu nabigu ka haajiray bacdigeeda iyo waktigii kasii horreeyeba haddii qofku maka uu ku islaamo ou hijroo waayo islaamkiisu muctabar ma haynaa layidhi asagoo hijroo kara weye qofku markuu hijroo kariyo hijro awood u leeyahay makana uu ku islaamo intaan maka la furanin fadradii u dhaxayso 8 sana heeday qofkii haajiri waayey islaamkiisu muctabar ma hayn marka waxaa jiray baa layidhi rag maka ku islaamay oo aan soo haajirnoon madiine aadin dagaalkii beder markii la imaanayey ayaa waxaa weeye nimankaas oo muslimiinta waxaa soo kaxeeyaa layidhi kufaaru qurayshaa soo kaxeeyaa layidhi kufaaru quraysh markay goobta keeneen ayaa waxaa lagu dilaa layidhi bederaa lagu dilay macal kufaari ay dhinteenaa layidhi ayagoo gaaladii la safan ayay dhinteenaa layidhi oo gaaladii dagaalka kula jira markii ruuxa laga qaadaayey oo malaa'igtii waxaa weeye malakulmowt iyo acwaantiisu ay ruuxa ka qaadaayeen hadalladii ay u yidhaahdeen ay ku tawbiiqinayeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya marka
inay markaasi dhimasho foolxun ay ku dhinteen mar hadday gaala micigeeda ay dagaalamayeen. alla wuxuu yidhi ina aladiina kuwa tawafaa ay oofsanayso hum ayaga almalaa'ikatu malaa'igtu ay oofsanaysow dha ilaahay oy ruuxooda qaadayso dhaalimii anfusihim naftooda xaal ay dulmiyeen. naftooda maxay ku dulmiyeen? bilmuqaami maca alkufaari weeye, gaalada micigeeday nigaadeen, hijradiina way ka tageen. maxaa yeele qof muslima inuu gaal uu ka barbar dagaalamo ma ahan weeye, gaal inuu ka barbar dagaalamo ma ahan, oo weliba markaasi uu la dagaalamaayo dad muslimiina uu la dagaalamayo oo gaal uu garab siinaayo. haddii waxaa weeye gaalkaas uu ku garab dhinto asaga oo kale ayuu noqonaya, maxaa yeele wuxu uu gaalkaas uu kaalmayhayo ayaan wax meesha yaalla aan ahayn. marka alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala qaaluu malaa'igtii waxay u yidhaahdeen fiima sheegeebaad kuntum ad ahaateen, fii ayi shayin kuntum weeye, sheegeebaad ahaateen fii amri diinikum amru diinkiina. qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay kuwii ruuxa laga qaadayo iyagoo cudur daaranaya kunnaa waxaanu ahaanay mustadcafiina kuwa la laciibsadaan ahayn, caajiziina can iqaamati diini weeye, diinta inaan oogno ayaan caajis ka ahaynay. fil arli dhulka dhexdiisoo arlu maka waxaanu caajis ka ahayn inaan diinteenna aan ku oogno. hadda meeshaadan diintaada ku oogi karin ayaa sharcigu wuxuu yahay inaad ka tagto oy waajib kugu noqonayso inaad ka hijrooto. haddii ilaahay yidhaha hijrada bayaankeeda waan tegi doonaa. qaaluu malaa'igtii waxay u yidhaahdeen ayagoo tawbiiqinaya igaadsaynaayo alam takun sow ma ahaanin arlullaahi ilaahay arladiisu waasicatan tu waasax, wasow arlada ilaahay waasic ma ahayn, oo fatuhaajiruu aad ku haajirtaan fiiha arlada alle aad ku haajirtaan, oo arlul kufri aad ka haajirtaan, oo beled kale aad u haajirtaan weye, kamaa facala kayrukum kayrkiin siday faleen maxaad ufay weyseenaa layidhi. warka intaa haddii luu joojiye marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi soo qasiro fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay oo kufaarta micigooda dhintay ma'waahum hoyaskoodu jahannamo weeye. mar haddii ma'wahoodu jahannamo uu yahay waxaad ogaanaysaa inay ayaguna saas ku gaaloobeen. wasaa'ad wayna xumaatow dha ilaahay jahannamo masiiran marjac ayay ku xumaatay. wasaa'ad way xumaatow dha ilaahay masiiran marjac, jahannamo ayaa xumaatow dha ilaahay, ma'wahooduna waa jahannamow dha ilaahay. meeshaas ayaa markaasaa ma'wahoodu uu noqonayaa weye. ilaa laakiin ayuu dhah ilaahay almustalcafiina kuwa la laciibsaday oo min arijaali ragga ka mida wanisaa'i haweenka ka mida walwildaani carruurta ka mida, kuwaasoo laa yastadiicuuna aan karaynin xiilatan xiilo aan karaynin, awood aan u lahayn weye hijrada, nafaqana aanan haysanin, walaa yahtaduunow dha ilaahay subxaana wa tacaala aanan ku hanuunaynin sabiilan jidow dhah ilaahay. fa ulaa'ika kuwaas casallaahu alla wuxuu mudan yahay oo waxaa xaqiiqaahu dha ilaahay an yacfuwa canhum alla inuu cafinaayo. wa kaana allaahu allana wuxuu ahaaday cafuwan allihii cafin badan, gafuuran allihii dhaafo ayuu ahaaday. hadda markii qoladii xumeeday laga soo warramay oo macal kufaari ina nigaaday dagaalka la soo galay ayagoo hijroo kara in markaasi qoladaasu gaalnimo ay ku dhinteen ayaa ilaahay subxaanau watacaala nooga soo warramay. marka dad kaloo waxaa jiray maka joogi jiray laakiin waxaa weeye lucafo ahay oon ayagu awood aan u lahayn inay hijroodaan oo xoolo ay ku baxaan iyo ammaan jidka aqoonin madiine loo qaado oo sidaas ayaa jiray. istisnahan marka waxau noqonayaa munqadic weeye calaa taxqiiqaa layidhi. alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ilaa laakiin ayuu dha ilaahay almustalcafiina kuwa la laciibsadow dha ilaahay oo min arijaali ragga ka mida wanisaa'i haweenka ka mida walwildaani carruurta ka mida, intaasoo dhan way ku jireen weye. marka hadda intaan wahay min arijaalidaas iyo wixii ka dambeeya waxay bayaan u yihiin mustalcafiinta weeye. sida hadda waxaa ka mid ahay cabbaas ibnu rabiicataa ka mid ahay dadka lucafada ahay, iyo salamata ibnu hishaam iyo kayrkoodaa ka mid ahay. wanisaa'i walwildaanine ibnu cabbaas waxau dhahay xabru caalimi umma kuntu ana wa ummii ayuu dhahay min almustalcafiina min annisaa'i walwildaani, aniga iyo hooyaday waxaan ka mid aheenou dhahay ibnu cabbaas dadka la laciibsadoo lucafada oo rag iyo carruur iyo haween leh ayaan ku jirnow dhahay, oo aan markaasi waxa weeye awood ay maaragtay beledka ugaga baxaan oo ay maaragtay ku aadaan hijrada aanan heli karin. marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala ilaa laakina ayuu dha ilaahay almustalcafiina kuwa la laciibsadow dha ilaahay oo min arijaali ragga ka mida wanisaa'i haweenka ka mida walwildaani carruurta ka mida, kuwaasoo laa yastadiicuuna aanan karaynin xiilatan xiilo ayuu dha ilaahay
حيلا وحوي أي كبحان وي ولا قوة لهم وي على الهجرة ولا نفقة ولا يهتدون أن كهنونين سبيلا جزءا كهنونين طريقا إلى أهل الهجرة وي طريق أو حوي أهل الهجرة يقعدان ما أقودي كلام حتى انت يوضد في مرأة وحي نفقيسان ما هيستان فأولئك كوها صولة إله سبحانه وتعالى عطى الله ألا وثه مذيه عطى هذا ماشا وحوي حقيقة لقلق بيها سيدي مارة يا حديث إيا قرآن كوا عطى هذا إيا لعل القرآن كي حديث كجرة حقيقة إيا لقلق بيها سيدي في عربية وكلمة عطى الله ألا وثه مذيه هو إلهي سبحانه وتعالى وثه حقيقة كيها أن يعفو عنهم ألا إلو عفنا أيه وكان الله الله نوحوه هذه عفوا أليه عفين بدن أيوه هذه غفورا أليه غاف أيوه هذه إلهي سبحانه وتعالى ولذا وعفين إياه معايا لأيض أود مرها أو وحوي أي وحقوق ميان وحنا أي فقبتان أود أسمرها مرك حقيقة وحاول إلهي سبحانه وتعالى هو أسأل إنه عفين سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما هذا وحوله سبحانه وتعالى ومن يهاجر روح هاجرون إلهي في سبيل الله لإله كلمة الله إلهي كلمة ديسة كوريال كيد هاجرا يجد وحوهليا في الأرض الروح دهديسة مراغما مكان سندلين كثيرا أوفر بضا هي وسعة وسحنما أيوك هليا ومن يخرج روح بحول إله من بيته قربي سكبحا مهاجرا حاله يشيها جرايا إلى الله إلهي أهاجرايا ورسولي رسول كيس ثم بعد يدرك الموت موت وهلاله أو طريقة وكهلاله فقد حقيقها وقع وقعي وواصلناذي أجر كيس على الله إلهي أيوك صناذي وكان الله ألا نوحوه هذه غفورا عليه ضافا رحيما عليه نحريس أيوه هذه آيات هذا إنماشا كجرين مر ديه شغل لغصوه ورمي إلهي يقول سبحانه وتعالى روح هاجرة أيوه إلهي وفي سبيل الله يكون هاجرة لإله كلمة الله وذو هليا مكان أخد الليو أو فربضا أيوه هليا وعدو بيس أكسن الليو وعدو بيس أكنحه أيوه هليا يجد وذو هليا في الأرض أغلظه الإلهي مراغما مكان السندلين مهاجرا وي كثيرا أوفر بضا هي وسعة واسعنمه إلهي نسر واسعيه تاس أيوه هليا بل وقفك مرة ديوه حويه سيد أود إليه وإنه هشودا أو دار الكفر أو كتغا مركز إلهي سبحانه وتعالى مكان وناسن أيوه جينيا نسر إلهي وهو واسعنيا ومن يخرج روح بحول إلهي من بيتي قربي سكبحا مهاجرا حاله يشيها جرايا إلى الله إلهي أهاجرايا ليش الله أمري يا ورسولي رسول كيسا ثم بعد يدرك الموت موت وطريقة كوها ليله وهي تبع ذلك أرنتان من لديه جري جندع إنه لمرة الليسي مركا هذا وحوية 10 كان الدنباء يا عيدا كبا يعني إلى 10 كان ماشي سنو جوغيا والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته